bulshada jaaliyada koonfur galbeed Soomaaliya ee ku dhaqan gobolka Sanaag oo isugu jira ganacsatada dhalinyarada haweenka iyo bulshada qaybaheeda kale ee kala duwanba ayaa kulan ballaaran oo isugu yimaadeen magaalada Ceergaabo waxay halkaasi cabasho xooggan ka muujiyeen muddada maalmaha kooban ee ka hadheen ee loo qabtay in dadka aan u dhalan Soomaaliland ay ka mid ka yihiin ay kaga baxaan Soomaaliland waxayna bulshadan jaaliyada koonfur galbeed Soomaaliya ee gobolka Sanaag ku dhaqan madaxweynaha Soomaaliland iyo xukuumaddiisa ka codsadeen in muddadaas oo aad u kooban awgeed loo kordhiyo si ay uga diyaar garoobaan ka bixitaanka Soomaaliland waxaana xubnihii halkaasi ka hadlay oo ka mid yihiin gudoomiyaha jaaliyada koonfur galbeed Soomaaliya ee gobolka Sanaag Ibrahim Axmed Chilibey iyo ganacsadooda caanka Cali Cabdi Duufo Cali Dheere iyo xubno kale hadaladoodii ka mid ahaa dad iska xamaasho ganacsataan ahayn caruuraha noo joogo xaasas baan ku leenahay xoolaan ku haysanaa waxaanu codsanaynaa in muddada 7 bari ay naloo qabtay madaxda Soomaaliland ay go'aan ay ka gaaraan annagu sidaan ku bixi karno waxa weeye annaga lacagana nalagu leeyahay lacagaanu dad ku leenahay 7 casho iska daa 5 bilood 6 bilood kuma soo bixi karto ilaa gobolada Soomaaliland degmooyinka oo dhan baa lacag naga taala dadku ilaa miyiga ilaa meelaha ilaa xeebaha lacag ay naga jirtaa dad sidaa ku bixi kara mani waa codsi aan u jeedinaan Jamhuuriyadda Soomaaliland annagoo ah dhalinyarada ka soo jeeda gobolada Baay Bakool koonfur galbeed kuna nool gobolka Sanaag 15 sanadood iyo ka badan magaalada degan ahna ganacsato Soomaaliyeed hanti noo taalo hantina ku leeyahay ayaa barsaabka gobolka saaka noo yeeray wuxuu nagu yiri ka baxa magaalada ka baxa annaguna rag sida ku bixi kare manihiin caruuraha noo jooga xaasba noo jooga waxaanu doonaynaa 7 cisho ayaa ka hadhay muddada barsaabku noo soo qabtay xoolahay way kala daadsan yihiin 7 cisho waxay tahayna malahan waxaanu codsanay dawladda barsaabka maayarka taliyaha qaybta madaxda gobolka wasiirka arrimaha gudaha waran cadde waxaanu doonaynaa in maaragtay dib loo eego inay dib isku noqdaan oo ay noo tashadaan anagu waxaanu nahay dad ka soo jeeda koonfur galbeed Soomaaliya caruur iyo xaasas bad dadka halka u jooga dad 7 maalmood ku tagi kara ma aha waxaanu leenahay madaxweyne iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdiraxmaan Cirro iyo gudoomiyaasha xisbiyada mucaaradka dhammaan ummadda reer Soomaaliland waxaanu ka codsanaynaa inay wanaagii markii hore ay nagu soo dhaweeyeen un arrintu ay noo ahaato oo aan xumayn Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxda ugu sareysa iyo ka ugu hooseeya waxaan doonayaa inaan dareensiiyo marka ugu horeysa dhalinyarada halka muddada 15 sano oo gobolka ku dhaqnayd inaanay ciida iyo calanka iyo ummadda Soomaaliyeed inaanay cadow ku ahayn anagu waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha Soomaaliland iyo golihiisa wasiirada in waxa hadda la leeyahay oo la sheegayo oo magaaladan iskaga baaha 7 casho 2 casho 3 casho la noo qabtay in yaani lanaga eego waxaas aan lanagu sameyn baan rabnaa hukuumadda waxaan ka codsanaynaa inuu dawanaagii walaaltinimadii markii hore aanu nagu soo dhaweeyay aanu ku sii joognay waxaan ka codsanaynaa hadda inaanu ku sii joogno Abdullaahi Xuseen Darwiish shabakada caalamiga oo Wadweyne News magaalada Ceergaabo